بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد محمد أحمد دكتور بانا kusoo dhawaada janaalkeenii fadlan hadday tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato janaalka fadlan subscribe noo saar aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay maanta waxaa ka hadli doonaa faa'iidooyinka aan ka helno mooska faa'iidooyinka aan ka helno way tiro badan tahay balse waxaan ka qaadan doonaa ilaa 10 faa'iido oo aan ka helno mooska faa'iidada number 1 waxaa ka helnaa mooska waxaa ku jirto vitamin B6 vitamin B6 jirkeeni shaqooyin ayay u qabataa shaqooyinkaas waxaa ka mid ah waxay jirka ka saaraan chemicalska aanan loo baahnayn chemicalskaas haddii ahaaleed marka chemicalska laga helo beerka iyo kuwa keliyaha laga helo oonan kuwaasoo jirka u baahnayn ayay marka dibadda u saartaa tan labaad ee noo qabato vitamin B6 waxay tahay waxay ka qayb qaadataa carbohydrateska iyo fatiska in lagu sameeyo metabolism ama in la jijibiyo ayay ka qayb qaadataa tusaale kale qofka markuu cuno bariis oo kale bariiska waa carbohydrate-kaas markay jirka kasho waxaa la rabaa in laga faa'iideysto waxaa loo bedelayaa marka qaab energy ahaan marka processkaas energy in loo bedelayo iyo metabolismkaas dhacayo ayay ka qayb qaadataa vitamin B6 sidoo kale vitamin B6 waxay ka qayb qaadataa samaysanka RBC ama unugyada dhiigga cascas in ay samaysanto ayay ka qayb qaadataa sidoo kale vitamin B6 jirka waxay ka dhex qabataa waxay ilaalisaa caafimaad qabka habdhiska dareen wadayaasha ee jirka nervous system faa'iidada labaad ee aan ka helno mooska waxay tahay mooska waxaa ku jiro vitamin khaasatan waxaa ku jirto vitamin C sidoo kale jirkeeni faa'iidooyin badan ayay u samaysaa waxaa ka mid ah waxay ka hortagtaa in ay soo gaaraan dhaawac unugyada jirka iyo nudayaasha oo ah celliska iyo tissue-yada in ay dhaawac soo gaaraan ayay ilaalisaa tan kale oo noo qabato vitamin C waxay tahay waxay samaysaa borotiin la yiraahdo collagen taasoo jirkeeni muhiim u ah faa'iidada saddexaad ee aan ka helno mooska waxay tahay waxay la dagaalantaa anemia oo sida mooska waxaa ku jiro maado la yiraahdo iron taas marka shaqadeedu waxay jirka ka dhex qabataa in ay la dagaalanto anemiyada faa'iidada shanaad ee aan ka helno mooska waxay tahay mooska waxaa ku jirto maado la yiraahdo chlorine taasoo ka hortagta cayilka ama fatiska khaasatan qofka in ay calooshiis ay noqoto calool weyn ah qofka in uu calool yeeshto ayay ka hortagtaa maadadaas la yiraahdo chlorine ee aan ka helno mooska faa'iidada lixaad ee aan ka helno mooska waxay tahay mooska waxaa ku jirto maado la yiraahdo magnesium taasoo ah 30 miligram oo waxaa ku jirto magnesium halkii moos magnesiumka marka waxay naga caawinaysaa murqaheena in ay noqoto murqo xoogan oo dhismaha murqaheena ayay ka qayb qaataan marka dadka jiimka iyo waxaas isticmaala ayaga mar walba moos cunitaankooda in uu badnaado ayaa aad iyo aad u fiican faa'iidada toddobaad ee aan ka helno mooska waxay tahay mooska waxaa ku jiro tryptophan iyo amino acid kuwaasoo marka muhiim u ah maskaxda haddii ahaaleed qofka maskaxdiisa in ay si fiican u shaqayso iyo haddii ahaaleed qofka in uu markuu wax badan akhriyo in uu wax badan xifdiyo iyo haddii ahaaleedba qofka in uu wax badan xasuus badan uu lahaado waxyaabahaas marka waxaa naga caawinaysa waxay tahay mooska marka halkan waxaa talo ugu dirayaa qofka bini'aadamka dadka ilaahay isku si ma ka dhigin qof markuu isla markii wax loo sheego si ay wax isla markii uu fahmaa qofka marka wax loo sheego 2 mar lagu celiyo 3 mar lagu celiyo asiga waqti badan uu ka ceshto ayuu ku fahmaa marka qofka markuu saas dhibaatadaas haday haysato waxaa fiican in uu badsado moos cunitaankiisa mooska marka waxay ka qayb qaadataa maskaxda in ay naqaato maskax xasuus leh qofka in uu noqdo
iyo wax si fiican inuu u xifdiyo ayay ka qayb qaadataa. Sidoo kale ardayda dhigata jaamacadaha haddii ahaaneed ardayda dhigata iskuulada waxaa fiican mar walba subax walba markay aadayaan iskoolka ama xilliga bareyga ama jaamacadda ay aadayaan in ay isticmaalaan haddii ugu yartahay hal moos inay isticmaalaan. Mooska sababtoo waxay ka qayb qaadataa qayb weyn ayay ka qaadataa maskaxda in ay wax badan gasho qofka inuu wax badan xifdiyo ay aad iyo aad ugu qayb qaadataa. Faa'iidada sideedaad ee aan ka helno mooska waxay tahay mooska waxaan ka helnaa hurdo fiican oo waxaa ku jirto tryptophan taasoo maskaxdeena shaqo fiican ay siiso. Marka qofka inuu qof degan noqdo hurdo in ay hayso iyo hurdo la'aan in ay ku dhacdo qofka waxa maamulaya marka oo amarkaas soo dhiibayo qofka hurdo in ay qabato waxa ka shaqeynaya waxay tahay maskaxda. Marka maskaxdaas qof walba wax walba uu sameynayo amarkeeda waxay ka imaadaa maskaxda. Marka maskaxdaas in ay fiicnaato waxa ku jiro waxay tahay tryptophankaas ayaa ka qayb qaadato. Markana waxyaabaha tryptophanka laga helo waxaa ka mid ah oo dabiiciga ah mooska. Faa'iidada sagaalaad ee aan ka helno mooska waxay tahay waxayna siisaa qofka inuu si fiican wax u arko ayay ka qayb qaadataa. oo mooska waxaa ku jiro vitamin A waxaa ku soo hadalnay cashirkii vitamin aan ka hadlaynay 10 faa'iido ee aan ka helno timirta oo waxay ka mid ahayd timirta waxyaabaha aragga qofka night blindness ay ka hortagaysay. Tan sidoo kale aragga ay u fiican tahay maadaama aan sheegnay in laga helo mooska vitamin A-gana wuxuu aad u saacidayaa marka aragga. sidoo kale vitamin C-na waa laga helaa kuwaasoo marka ka qayb qaata qofka araggiisa in uu horumaro oo mar walba markuu moos badan uu qaato oo araggiisa sii horumaro oo hore qofka uu sii socdo oo si fiican wax u sii arko. Faa'iidada ugu dambeyso barnaamijkeeni oo ah faa'iidada 10aad ee aan ka helno mooska waxay tahay mooska waxaa ku jiro maaddo la yiraahdo fiber-ta marka waxaa jirto cilmi baaris ay sameeyeen jaamacad ku taala dalka UK oo la yiraahdo Leeds. jaamacaddaas waxay soo saartay cilmi baaris oo ah cuntooyinka laga helo fiberska in ay aad ugu fiican yihiin wadnaha. oo mooska oo keliya ma ahan cunto walba ee laga helo fiber in ay u fiican tahay wadnaha oo wadnaheena in ay noqdaan wadna caafimaad qaba ayay ka qayb qaataan fiberka. 10kii faa'iido intaas ayay noogu eg tahay. waxaan rajeynaa markaad daawatid videogan oo aad soo gaartid dhamaadka waxaan rajeynaa 10kan faa'iido in ay aad ku anfici doonto noloshaada ay wax badan ka bedeli doonto haddaad isticmaashid mooska. oo haddaa ahayd qof qaadan jiray maalintii hal moos in aad ka dhigi doontid 2 in aad ka dhigi doontid 3 kadib markaa ogaatay inkastoo hore u ogeed haddana aad sii ogaatay intaa ogeed in ka sii badan oo ah faa'iidooyinka laga helo mooska. marka waxaan rajeynaa marka intaas adiga nafsadaada aad ka faa'iidid dadka kalena inaad sidaas oo kale ugu faa'iidaysid oo aad videoga aad share raadid. intaas ayaa ka codsanayaa. aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijyadeeni.